السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدين صاحبتي مي في عنتين ما أنت إيه قصة كلا عصب. قصة عصب ما أنت قاعدين وضو عجيب واي وحيدي كسو وديسا أمريكا وحيني جينيسا فلبين. ولي من يسود دين واحد فلبين كسابسن لكن أنا أقول مشغول سنة قصوين بدن أن كسو أرورية لنا عسيت فلبين دتك وسترن كإمادان مركي حكا تجان حالكو صو نقضو لكن هالقصة وكل جود يقول عجيب كريسة ما أنت ربع أنني لو ذاقو أنت أنا قصة بلابن فضلا سبسكرايب إيسار هدا هورنا رجوكتني جزاك الله خير marka qisadana ku sii soconina wiilkan Ameerika degan yahay 26 sano jira Elliot Allah Elliot Eastman Allah wiilkaneetood wuxuu ahaa Uber driver iyo YouTube markaas uu bilaabay YouTube-kiisa xoogaa subscribe u haystaa marka maalin og aan wuxuu ku gaaray inuu soo nacay shaqadan Uber-ka inuu soo nacay uu rabo inuu adventure aado adduunka ku soo wareego meeshaan waa ku caajisay waxaan rabaa inaan galo nolol cusub oo YouTube-kiina soo duubto Elliot wuu soo baxay wuxuu aaday Philippines wuxuu ka sii aaday meel qatar ah oo red zone la dhaho oo maxaa la dhahaa oo loo ogolaan dadka oo ajnabta ah markay imaanayso waa loo sheegaa waxa la dhahaa meeshaasi tod way qurux badan tahay quruxdeeda soo jiidanin ha aadinaha meeshaasi tod dadka lagu qashtaa dadka lagu baaba'sadaa dadka lagu dhacaa qofkii galane ma ka soo baxayo marka ninkii madaxdeegiis wuxuu yiri meesha la yiri yaa la aadinba baaba aadaabno tikidkiisi meeshan ku ka dagay gobolkii ka dhacay meesho jaf dhahay meesho tagay wuxuu arkay meel yaro paradise ah oo qurux badan oo kaale arag ah laakiinse meesha waxay ku cuntahay waa meel dangerous ah horni soo sheegay adi intuu meelaha wareegayay gabar ay meesha ka barteen oo muslim ah ninkaana waa gaal nin cadaan ah gabar muslim ah meesha ka barteen gabadhii shukaansaday gabadhii wada socdeen gabadhii waxay tiri saaxib misal weedi karnaa adiga maxaa la dhahaa cilaaqad sababta ah adiga gaalata anna muslim ahay marka hor mu sii socon karno nuu kala wad meesha adi muslim wuu muslimay gabadhii reerkeeda Filibiinka ka doontay reerkeeda wuxuu dhahay guri waa haystaa guri soo ijaartay gabadhii waa la sii waa lagu daray marka way isguursadeen gurigii degeen marka ninkaneeto wuxuu jeclaa inuu live TikTok soo galo oo ka sheekeeyo xaalkiisa sidee tahay wuxuu ka sheekeyn jiray dadka inay lacag ka deensadaan wuxuu ka sheekeyn jiray in lacagta meesha ku ijaartay wuxuu kaloo ka sheekeyn jiray adi maanta dhan wax lacag ku saabsan uu ka sheekeyn jiray meeshuu degan yahay waa meel qatar ah oo dad xun degan yihiin oo la isku dili karo xitaa wuxuu ka furtay dabakaayo oo raashinka xaafadda laga iibsado marka maalmaha kamid gurigiisa dukaankii loo soo dhacay kor laga soo dilaaciyay meel Ameerika gudaha la soo galay waa la dhacay dukaankiisa alaabta laga dhacay subaxdii uu imaaday ninkii uu isbedel qalbiga ka jabay wuxuu bilaabay maxaa la dhahaa inuu fiidiyaashu soo diin jiray live uu soo gali jiray maxaa la dhahaa inuu yareeyo wifi xataa xaafadda uu soo geliyo xaafadda wifi ma lahayn marka wuxuu sameeyo kalentad niida ka jabtay wuxuu bilaabay live uu soo gali jiray inuu markuu soo galaayo soo ka jaban tahay uu soo galo waxaa yimid marka maalmaha kamid ah dadka live ku jirana waxay weydiiyeen see xaaladda aad ku nooshahay ee Philippines noogu sheekay meesha aad ka joogtid xaaladeeda wuxuu yiri meeshaan inta aad u liidataa waxa buu sheegay markuu wax sheegay ka bacdi habeenkii uu iskaga baxay wuxuu tagay uu casho cunaayay asiga iyo naagtiisa reerkooda iyagoo casheynayaan oo miis fadhiyaan albaabka la soo garaacay ila jibir raba camal xooga la soo garaacay albaabkii taagan askara taagan oo tuuga ah askar ma aha laakiin dharka askartay wadaan tuuga waay ninkaana markasta wuxuu sheegi jiray live uu sheegi jiray in maalmaha kamid ah ay dadkan qabsan doonaan maalmaha kamid ah in la afduubi doono oo naftiisa ay ku jirto riski oo markasta ka sheegi jiray in dadkan tuugada meesha degan ay qabsan doonaan oo dareensanaa waxay noqon kartaa laba mid noqon kartaa dadkaas inuu iskaga sheegay ay sheeka ka ahayd iyo waxa laga yaabaa in xataa uu runtiiba u dareensanaa waxaas oo dhahay xataa meeshaan dadka degan haddii la afduubayo maalin oo la qabanayo dadka ma celin doonaan mase waa fiirsan doonaan marka la afduubayo ala itaxal habeenka marka albaabka la soo garaacay warkii aan ugu daalinne albaabka marka la soo garaacay ee askar dad ku labisan oo tuuga ah laakiin ay soo garaaceen wiilkan wiil yar waa 26 jir ah wuxuu sameeyay inuu dagaalamo oo iska celiyo oo sugayo dadkaan oo kale dhiman doonaan uu la fiirtamay uu iska celiyo tafo ahay wiilka uu iska celiyay laakiin markii ay arkeen inuu fakar rabo inuu xirib inuu ka fakado oo juqda galo rabe juqda si fiican u yaqaanaa xaaskiisa isku lugeyn jireen wuu yaqaanaa meeshaasi dad
buuraha iyo juqda wuu geli jireen markay lug aadayaanu aadan jireen meeshaas marka wuu yaqaan si fiican u yaqaana wuxuu isdhahay la dagaalan 5 nin iska la dagaalan carar uu dhahay fakee juqda gal marka ayaga laakiin waxay wateen bistoolada ay wateen ay ku tuureen midna caloosha kaga dhufteen midna lugta kaga dhufteen gabadhiyo meesha ka qeylinaysa reerkiyo meesha ka qeylinayaan waa la jiitay sidii loo waday meel waxay degnaayeen badda geeskeeda degnaayeen sida liidoo kaleentad gurigooda ku yaalay waa la jiitay doon matooraa la saartay waa lala cararay waxaa lala gala badda reerkii bay baxeen askartii u tageen askartii imaatay guryaha dhan xaafadda dhan la wada garaacay waa la raadiyey waa la waayey newskii isqabtay magaaladii isqabsatay markay isqabsatay magaaladii oo meel kasta laga raadiyey wiilka waxaa la announce gareeyey inuu dhintay markaas si kasta haddii badda loogu raadiyey waa laga waayey markii la jiidayana dhiiggiisa meeshuu yaalaa 2 xabadaa ku dhacday midna caloosha kaga dhacday midna lugta kaga dhacday marka tuugadii la soo qabtay 5 ay ahaayeen 3 la soo qabtay 2 kaleetana waa la la'yahay way dhunteen kuwii waa la xiray tuugadii wiilkiina miskiinka ahaa meesha ku nafgooyay oo nolol ka soo raadsaday Filibiin oo imaado marka qaarkood qisadana meesha ku dhamaatay saaxiibayaal marka qaarkood marka ay yar tahay waxaas dhehaysaa meeshan meel ka fiican aad jirto marka naftaada aa baxar ku ridaysaa dhalinyarnimada waxaa waaye cadow waaye maqli jiray naftaada marka dhalinyaro tahay waxaa fiican inaa markastaba aad raadisid wixii safe ku ee naftaada inaa badbaadsatid marka saaxiibayaal aad iyo aad mahadsantihiin rabbi subxaana wa tacaala waxaan noogu baryayaa inuu noo naxariisto naxariistiisa waasic annaga iyo idinka waalidkeen iyo waalidkiinba iyo waalidiinta muslimiin kulligeenba inuu isku keen kulmiyo jannat alfirdows alaclaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu